Okay, haddii lagu guuleysto qorshahan shidaal soo saarista, dadka waxay sheegeen in cid walba la dhihi doono orod bax bangi soo furo kadibna iska seexo. Marka su-aasha jawaabteeda waxay tahay arrintan sidaasay u dhici doontaa mise totally way ka duwan tahay oo sida saxda sidaas maaha. Aan ka wada hadalno marka arrimaha shidaalka, right? Markii wadani uu rabo inuu soo saarto shidaal si ay dadkiisa uga baahi baxaan, maxaa loo baahan yahay? Horta marnaba ma dhacayso, mana dhacayso hana ku saxan my friend, in shidaal haddii la soo saaro oo ay dhacdo in lacag kaasha ku soo dhacdo habeenkii waxaa la tego waay. Laakiin faa'iidada sidee loo heli karaa? Sidee aad ugu dareemi kartaa faa'iidadaas ka timid batroolka inay jeebkaaga soo gasho? Dhowr qaybood, dhowr waddo aad ku heli kartaa faa'iidadaas, amaba aad ku dareemi kartaa jeebkaaga inay soo gashay lacag toos uga timid batroolka. Marka hore horta faa'iidada ugu horeysa waxaan ku dareemayna waxay tahay dhowrkan waddo soo socdo. Waddada ugu horeysa waxay noqonaysaa haddii aad arday tahay oo weli waxbarashada ku jirta inaad ka dareentid dhinaca waxbarashadaada. Maxaa yeelay waxaa la yidhaahdaa waxaa la tixgelin doonaa ama dhaqaale badan lagu bixin doonaa arrimaha researchiga, horumarka waxbarashada, jaamacado badan in la helo. Waxbarashada laba mid in la raqiisiyo totally laga dhigo sanadkii ardayga Soomaaliga inay ka baxdo waxbarashada lacag kor haddii u booddo $50 sanadkii, amaba zero ay noqoto wax lacag ah ardaygaas la weydiinin waxbarashadiisa oo dhan. Midda labaad waxay noqon kartaa caafimaadka, inay dhacdo in la helo isbitaallo waaweyn oo qofka fursad u siinayso inuu helo caafimaad tayo leh oo waddanka dibaddiisa u aadi lahay, dhaqaatiir tayo leh in la soo saaro, sidoo kalena caafimaadkana uu noqdo mid raqiis ah, qofka uusan ka walwalaynin in caafimaadkiisa lacaga badan uga baxdo. Waddada saddexaad oo kale waxay noqonaysaa kaabayaasha dhaqaalaha. Waxaad u baahan tahay ganacsigaaga inuu gobolka gobol uu tago. Sidaas waxaad u baahan tahay waddo nadiif ah aad marto in waddooyinka lagu hagaajiyo si aad u shaqaysatid. Laakiin my friend ma seexanaysid, right? Waxaa lagu fududeynaa shaqada aad qaban lahayd inaad sidii aad u baahneed aad u qabsatid si ganacsigaaga uu u guuleysto. Dowladdana mar walbaba dhabarka kaa riixdo. Haddii aad u baahan tahay ganacsi cusubna inaad heli kartid bangiyo ku caawiyo si ay kugu sameeyaan maalgelin oo ganacsigaagan hore u sii wadid adigoo ah muwaadin Soomaaliyeed. Sidoo kale inaad qofkii mar walba uu helo ganacsigiisa loo maalgeliyo warshadahaas la maalgelinayo kadibna la maalgeliyo beeraha, wax soo saarka beeraha sare loo qaado, waxyaabo badan la soo saaro, dhulkiina isku furmo. Tan kaloo loo guarantee waxay noqon doontaa in qof jinsi Soomaali leh uusan dhihin shaqaliya jirto waddanka shaqaliya uga carara. Yacni in la xaqiijiyo cid walba inay shaqo heli karto, ama dhinaca dowladda ha ka hesho ama shakhsiyaad kale ha ka helaan. Laakiin in la xaqiijiyo shaqo inay jirto cid walbana ay shaqaysan karto, aan shaqada la isku baryeelin. Maxaa la yidhaahdaa lana dhihi doono waddankan shaqo kama jirto. Xaqiiqada ugu horeysa loo baahan yahay waxay noqon doontaa in la helo shaqo, cid walbana shaqo ay hesho. Marka